الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام أصحابتك وحيران يوتيوب شانل كينا. waxaan filayaa inaa ii fiicantiin anaga aad baan u fiicannahay maasha allah alxamdulilah ilaahayga anagoo nabad isu kaa soo celiyey ayaan u mahadnaqaynaa. waxaynu samaysanay canjeero amxaari soomaalida way jeceshahay dhaqankeena iyo diheena ma aha laakiin waa jecelnahay maasha allah. bahashaan halkan waxaan ku wataa 3 kiilo oo basal ah, basasha gaduudan ah. basashaas gaduudan aan soo jarjaranayna soo yareysanayna basbaaskii lagu sameynayay oo basbaas gaduudka ahaa canjeero amxaarida ee suugadeeda, xabad digaag oo la soo jarjaray iyo nus litir saliid ah. halkaas 8 xabo oo kuna noogu bislaanaysa oo biyaha aan ku karinaynaa. marka basashii aan soo jarjaro aad u soo yareeyay aan hadda digsiga ku soo shubtay iyada biyaha aan ka saaraynaa ilaa ay aad isugu bislaato oo midabkeeda isbedelo oo bunni ka noqdo. waan dabkan ku haynaynaa iyadoo wax kale aan lagu darin. waa in biyaha laga saaro aad ay u bislaato. suugada canjeero amxaaridana sideeda waxay ka kooban tahay basashaas iyo inta aan idin tusaayay. marka basashaan ilaa aan si fiican uga soo shaqeyno biidnillaahi waa isugu soo noqonaynaa cabaar inoo soo bislaanaysaa. biyahaas dhashay marka biyahaas ilaa ay ka dhamaadaan waxa waaye wax kale oo lagu daraa ma jirto insha Allah oo ay isbedesho aad u bislaato isku dhex dhacdo iyadoo dhan midabkana ka bedelmo. saas loo karinaya maanta dhan insha Allah. dab fuul ah ku karsanaysaa hadhow dabka la gaabsadaa laakiin hadeer marka hore basasha dab fuul ah ku karinaysaa si ay biyaha dhan kaga dhamaadaan. markaas ka soo dhamaanayaan biyuhu isku soo dhacaysaa iyadoo dhan maasha Allah. intaasaan ku daraynaa saliidda hadeer. saliidda inta adiga jeceshaad ku darsan kartaa. muhiim ah inay qiyaas leedahay 3 kiilo oo basal waa hadeer midaan. marka saliidda daarto ka yareysan kartaa, daarto ku badsan kartaa. waa un suugo micno badan ma sameynaysa saliideeda marka cabir sax in laga siiyo. qaado yar oo subag aan ku darsaday ama butter hadkii u taqaan qaado kalena waan ku soo darsaday maasha Allah. subagaasna yar ugu daraya nus bakeeri subag ku darsanaa insha Allah laakiin oo subaga butterka ah waxaan ku soo bilaabayaa basbaas gaduudkii laga sameynayayba oo suugada asalkeeda ahaa. waa basbaas Ethiopian caraftiisa ayaabaysid 4 qaado ayaan ku daray. akaasa maasha Allah tabarakallah saasi ku soo baxday. quruxda iyo caraftii macaanku waa ka yaabaysaa. asxaabi waxaan kaloo idinka ilaaway oo soo diyaarsaday toon. halkaas waxaan ku darsanayaa subagan hadeer waxaan ku soo darsaday nus qaado toonna waan ku soo darayaa insha Allah. xalwad waaye marka sida xalwada le maanta dhan awalaaqda u kortaagnaatid waaye. waxaa kaloo halkaa diyaar igu ah yaanyo 3 xabo yaanyo ahoo intaan karkariyay aan diiray aan soo shiiday waaye. haddaa rabtid waa ka deyn kartaa muhiim ah haddaa rabtid waa ku darsan kartaa. aniga waan jeclaystay inaan ku darsado marka adiga sidaa jeceshaha ka yeeli kartaa laakiin yaanyadu waxba kuma dhimayso macaan un bay taraysaa iyo inay suugada maasha Allah ugu noqoto. digaagiyan ku soo bilaabayaa xabad digaaga oo si fiican u soo jarjaray si fiican u soo dhaqay maasha Allah. waaye aan dubki ka diiray macnaha haragii maasha Allah. waa kaas hadeer aan ku soo wada daray xabad digaag oo dhan oo is wadato waaye oo soo jarjaray.
saasaan ugu soo wada dhammaynaya digaaggii xabadii oo dhan waan kusoo darayaa kadibna iyadii iyo suugadii baan isdhex gelinaynaa maasha allah tabaaraka allah ay kusoo baxaysaa kaale iska arag isagaasaan haddana cabaar kusoo bislaynaynaa ilaa iyo 30 daqiiqo digaaggaa si fiican ugu bislaanayaa qaado suugaan kusoo daray toon baan ku darsaday hadeerna intaas toon weeyo nus qaado toon hadhowtana toon kale aan ku darsan doonaa insha allah qayb baan ka reebtay carafta iyo wanaagga iyo shacniga waa yaabaysaa ayaan ku dhahay bahashaan maasha allah toontii intii dambaan kusoo darsaday haddana isku duba dhacaysaa asxaabey toontii intii ugu dambeysaan hadeer kusoo darsaday maasha allah caraf iyo wanaag taraysaa muddaan u dhaxaysa hadeer fiidiyoogan soo jarjaray soo gaabiyey cabaar baa u dhaxaysay intay ku bislaanaysay tii hore hadeerna qaado cusba ahaan ku darsaday way noo dhowdahay suugadeena markaan insha allah haddaad nagu cusubtihiin subscribe noo saara cidii hore noola joogtay aad baa ugu mahadsantihiin la socodka daawashada fiidiyooyadeena iyo muuqaalada aan soo gelino like-ta noogu qabta like khayr allah idin siiyo inta daawata ee like-ta aaday u kala badan tahay walaalayaal oo like-ta noogu qabta suulasha ma aragti lacag ma aha iib ma aha maka daalaysid markaa muuqaalka indhaha qac ku siiso dhag isaga sii adiga iskaga taga daartiida laakiin dhag iskaga sii waxaan kaloo idinka codsanaynaa inaad dhammaysataan muuqaalada fadlan biyo kululaan ku darsaday si suugadii ay isugu soo duba dhacdo oo bislaato bakeeri biyo kulul ahaan ku daray bakeeri weyn oo biyo kulul isku duba dhacday waa aragtaan maasha allah tabaaraka allah say kusoo baxday ukuntii aan kariyey oon soo fiiqay ayaan ku darayaa hadeer geesahan wax yar uga jeexjeexaynaa si ay suugada nuxurkeeda gudaha uga gasho saasaan kusoo wada dhammaynayaa biidnillaahi kariim saasaan kusoo wada dhameeyey ukuntiina suugadina saasay diyaar noogu tahay maasha allah asxaabay canjeerada aniga ma samaynin waxaan kasoo gatay banaanka marka insha allah waan isku daynaa inaan idinla wadaagno canjeerada sida loo sameeyo biidnillaahi kariim aan mar soo geliyo janaalkayga laakiin hadeer suugada ayaan ka faa'iidaysanaynay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba haddaa nagu cusubtiin subscribe noo saara haddaa hore noola joogteen like-ta noogu qabta fadlan fiidiyogana dhammaysta saasaan usoo wada iidaamay waa aragtaan kaale iska arag waaye kaalay nala cunahee caafimaadku cuna aan idin leenahay idinkana isha kaga cuna annagana maasha allah waxaan caadi ahayna kasoo baxay ishcalaa ah maasha allah waa kaasaahay kasoo tuura idinley kasoo tuura maasha allah wixii aniga aan markaas samaysanayo inaa igala faa'iidaan aan jeclahay asxaabteyda aan jeclahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba janaalku waa janaalkiinii like-ta ha kala bakhaylina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu